aniga nafsadeyda sidaad u badbaadada darteed ayaad qabiilkaaga oo idilu daayacday raggaana kuma daynayaan way imaanayaan waxaan kaga doonayaa inaad iska taxadirto run ahaantii aniga ayaad marti sharaf la ii yahayd oo gurigayga ayaad ku sugnayd lagamana yaaba intaad aniga gurigayga joogtay in cid bini aadana adiga gacan ay kuu qaadda haddii la isku dayo in adiga gacan lagu qaadana adduunkoo dhan ayaan baabi'inayaa geesigayga Cusmaan aaba salaadaada Allah ka aqbalo aamiin wiilkayga aaba nimankii Mongooliska ah waxay sameeyeen waa la socdaa kooy inaad u socotana waan ogahay mana ka haray waxaan rabaa inaan ku raaco in wiilkayga Cusmaan geesi waa tahay kartina waa ay ku dheertahay dagaaliyahana waa tahay laakiin looma baahna mararka qaar inaad inta kaliya baxdo oo duurka aado ugaarsin aad u dhaqaaqdo sababtan sida ku leeyahay wax kale maahan Mongoliyaanki waxay rabaan inay anaga weerar nagu soo qaadaan duurkana ayaga ayaa ku yaacsan kaliya ha bixin sababtoo ah qatar ayaa kaaga imaan karta wiilkayga Cusmaan waxaan aan ku siinayo waa amar waayaha aaba amarkaaga jiro dadkan aniga ilaalinaayo aabo mid haddii aan ku weydiiyo walaalkay Kungus cashada muxuu uga soo qayb geli waayay wiilkayga Gunduus qalad aad u weyn ayuu galay ciqaabta uu leeyahayna waa inuu maraa adiga faraha ka qaaday ka aamus aabo mar walba aan qalad kaa galna waa nacafi jirtay isaga qalad hadduu kaa kale ma cafinaysid miya in wiilkayga si fiican ii dhegayso dadka waa bini aadan oo qalad waa uu ka dhacaa qaladkaas ay galeenna laba nooc ayuu qaladkaasi u kala qaybsamaa waxaana la kala yidhaahdaa midka aad aadamaha ka gashay iyo mid rabbiga adiga ku untay aad ka gashay haddaba midkan haddii uu yahay mid aad rabbiga subxaanahu wa tacaala ee ku untay aad ka gashay asaga ayaad u noqonaysaa una toobad keenaysaa wiilkaygii laakiin hadduu ahaan lahaa qalad anigu iga galay waa wiilkaygii waana iska cafin lahaa laakiin waxaa asaga laga rabaa hadda inuu toobad keeno wixii uu qaldayna uu dib ka saxo oo uu toobad saxa la yimaado wiilkaygii wax kasta markaas ayay hagaagi doonaan insha Allahu tacaala